noolaysta la yidhi xoolo iyo carruur iyo wax walba waa helaysaan haddaba astaqfir allah waxaa lay sheegay inan yar oo soomaaliyeed oo muslima oo maraykan jooga oo shaqaysta oo yidhi maalintii 2 kun oo astaqfirullah baa sameeyaayo wax haba yaraatee nolosheeda is hortaagama jiraan hooyaday baan maalintii dambe u imid dukaan haysato waxaan ku yidhi hooyo haddaad laftaadu astaqfirullahda badiso dukaanka uu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu baaba camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna barayaa asbaab kale oo aan ahayn asbaabtan maadiga aynu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbu samaawaati inuu labadaba isagaa qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isagaa dhigay maca daalika isagaana ka tallaabsan kara walidaalika baa karaamaadka iyo mucjizaadka iyo waxaasoo dhamme waa maxay waa qaanuunkan aynu naqaano laga tallaabsanaya dee karaamadu waa wixii aynu naqaanay oo laga tallaabsaday walidaalika suuraddani waxayna baraysaa markaa fitanka dhammaanteed hadday fitna diineed tahay iyo hadday mid maal tahay iyo hadday mid cilmi tahay iyo hadday mid sulto tahayba in laga tallaabsan karo haddaad suuraddani manhajkeeda fahamteed oo ah qofka suuraddan akhriya adaa lahu nuurun baa la yidhi nuur baa loo ifiyaa oo bayna aljumca waljumca uu ku ifsan kara baa loo ifiyaa waxaan leenahay suuradda tani waxay baraysaa qofka muslimka ah noloshu waxay leedahay wax laga boqo waxay leedahay mushkilaad ka hor yimaada waxay leedahay mugdiyadu qalaq bay leedahay waxay suuraddani ku baraysaa sakiin